diinta naga dhaxayda luqadda naga dhaxaysa wada dhalashada naga dhaxaysa laakiin siyaasad waa siyaasad siyaasi aniga maahi xilna ma hayo laakiin dadka Somaliland aad baan u jeclaa meel walba dunida ka joogaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتي كحرم برتيدا يوتيوب كمال والبقى والدنيا دافية كجوكتان هذي مال إذن تاينا مال وناكسن هذي هبين إذن تاينا هبين وناكسن انتا كدب ما انت عنيق موقال كان وحان أدوبيا دادك سومالي لان مال والبقى والدنيا دافية كجوكان وحان أوهم بديين maanta oo maalintii la aasaasay calanka Somaliland kuma hadaafaha wanaaga dhisaha wixii dhacayaba dankiisa hayaha wadaniga dhawta allow dhowr Somaliland allow dhowr 18 May maanta waa maalin weyn dadka Somaliland qiimo weyn ugu fadhido waxaan leeyahay qof walba Somalilander oo ku xiran barteeda YouTube-ka hambalyo waa tahay intaa kadib dadka Somaliland iyo dawladda Somaliland hal mid ay mudan yihiin in ay ka bartaan Soomaalida kale taasoo mayal adeega iyo go'aanka iyo in ay nabadeystaan deegaanadooda Somaliland mowqifkooda isma uusan bedelin 30 sano iyo apaaf waxayna weli ku taagan yihiin hadafkooda ayagoo intaas oo sanadood ku taagan hadafkooda haddana marnaba ma aysan dayicin dadkooda reer Somaliland waxay nabadeysteen dhammaan Somaliland deegaanadooda magaalooyinkooda tuulooyinkooda Somaliland magaalo walbo kamida haddii aad tagto waxaad ku noolaanaysaa nabad kama baqaysid amni darro xasilooni baa ka jirta deegaanada Somaliland waa dad isku tashtay waa dad isku mowqif waa dad xitaa haddii ay kala fikir duwan yihiin wada hadal ku dhamaysta khilaafkooda oo aan marnaba dooran AK47 waxaan dhihi karaa inta ku hadasha afka Soomaaliga Somaliland waa kuwa saxda ee wax ka bartay dalkeena meesha uu soo maray Soomaali shan bay ahayd shantaas wixii ay soo mareen kuwa kaliya ee wax ka bartay waa Somaliland aniga ayub ahaan Carlo waxaan aaminsanahay in ay tahay dal sababtoo dalka lagu sheegayo waxa waaye in uu leeyahay hogaamiye daacada in dalku yahay nabad in kala dambeyn jirto in hay'ado sirdoon oo xoogan ay jiraan in dekada uu leeyahay dalku dhammaan ay labooro ciidan intaba Somaliland waa ay leedahay aniga ahaan maadaama aan ahay shakhsi waxaan aaminsanahay in Somaliland aysan dal waxba uga baahneen haddaysan dal ka weyneenba aysan ka sifiicneenba ما أهن معناها أن أديك وقن على Somalilanderka sidoo kalena aan ku xumeynayo qofka Soomaaliga calanka buluuga aaminsan ma ahan waa ra'yigayga maxaa yeelay waxa waaye Somaliland waa meesha kaliya ee ay ku nasan karaan Soomaalida kale ee ka soo cararay dagaalada ayada iyo Djibouti afkeena Soomaaliga waa naga dhaxeeya wada dhalashada waa naga dhaxeeya laakiin siyaasadda waa apart waa ka duwan tahay inta naga maadaama aan siyaasiyiin ahayn waa inaan ixtiraamnaa go'aanka ay gaareen
walaalaheen Somaliland haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed haddaan ahay Ayub Carlo shacabka markaan xagga iska dhigo aniga weligay calan iskuma sawirin kow doonaba ha ahaado kan Djibouti aan isku sawirin kan Somaliland aan isku sawirin kan Soomaaliya aan isku sawirin kan Galmudug aan isku sawirin oo aan ka soo jeedo aniga reer Galmudug ah hase ahaatee 18 Maygan waxaan isku sawiray calanka Somaliland waxaan weyneenayaa oo sharfayaa Somaliland diinta naga dhaxayda luqadda naga dhaxaysa wada dhalashada naga dhaxaysa laakiin siyaasad waa siyaasi aniga maahi xilna ma hayo laakiin dadka Somaliland aad baan jeclaa meel walba dunida ka joogaan intaas waa mid waxaan u rajeynayaa sanado badan oo barwaaqo ah waxaan u rajeynayaa farxad dadka reer Somaliland meel walba joogaan waxaan u rajeynayaa dhawaan waliba sanadadan dhow inay maqlaan madaxda Somaliland iyo shacabka Somaliland waxay ku farxaan inay maqlaan ayaan u rajeynayaa waan idin wataa meel walba dunida aad ka joogtaan sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dad badan oo caan ah oo aniga asxaabteyda ah oo reer Somaliland oo aan garanayo halkan waxaan ka salaamayaa youtuberka weyn ee reer Burca ee aan aadka u taageero guri barwaaqo macallin halkan aan ka salaamayaa the legend dad badan oo caan ah oo reer koonfur ama reer Soomaaliya ah sida u taqaanaan idin koonfur dhahdiine dad badan oo caan ah oo aniga dhankayga ah oo u dabaaldegay ayaa jira xitaa magaalada Muqdisho looga dabaaldegay meel walba waa looga dabaaldegay shacabka reer Muqdisho aad bay u jecel yihiin walaalahooda Somaliland ana reer Muqdisho aad baa idin jeclahay dad badan oo idin jecelna waa jiraan bal muuqaalada daawada iyo sida ay u weynayeen maalinta 18 May oo ah maalinta Somaliland bal daawada reer Somaliland yaan idin sheegin reer Muqdisho idin nacab reer Muqdisho waa idin jecel yihiin meel walba joogaan waa Ayub Carlo soo idin leh ku raaxaysta muuqaaladan alla dhisno waliga dhisno Somaliland dabanaga ka dhasho hadaan kugu dhaadana qof walba oo daawada muuqaalkan waxaan leeyahay guuleyso muuqaalkan haddii aad daawatay like garay aragtidaada comment igu soo qor channelkani subscribe saaro adaa iskare keligay ma lihi wax walba oo ku xiiso geliya adiga ayaad ka heli kartaa ciao